qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ee ku nool dalkani Koonfur Afrika ayaa maalmihii u dambeysay cabasho xooggan ka muujinayay dalalka sii kordhaya ee loo geysto ganacsatada Soomaalida ee ka xamaasha tuulooyinka ku xeeran magaalada Cape Town ee waddanka Koonfur Afrika. Bulshada Soomaalida ee u badan ganacsato oo ka xamaasha deegaanada ku dhow magaalada Cape Town oo maalmihii u dambeysay dalal iyo dhac isdaba joog ay u geysanayaan burcad South Africana ayaa walaac xooggan ka muujiyay arrimaha ammaan darro ee ku soo kordhaya maalmihii u dambeysay. waxay sheegeen in aad ugu xun yihiin falalkan lagu waxyeeleynayo ganacsatada Soomaalida isla markaana aysan u dulqaadan karin hase yeeshee aysan aqoonin meel ay kaga aadaan maadaama dalka Soomaaliya ay uga soo carareen dhibaatooyin iyo dagaallo ka jira awgood. waxaana qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida ay soo xireen goobahooda ganacsi oo ay ku lahaayeen tuulooyinka ku xiran magaalada Cape Town xilli ay u dulqaadan waayeen dhibaatooyinka soo food saaray oo kaga imaanaya burcadda South Africaanka ah. والله وهذا حلي وحما aan ku jirno xilli qabowga waa xilliga dilka iyo dhacga nolol geysto waxa Ilaahay aan ka codsanayna inuu naga baxsho iyo dawladda South Africa dhibaatadan. wallahi aad oo baqayna sababtoo aniga waxaan ka imaanay dal aad u fog waxaan u maan halkan shaqo marka Ilaahay waxaan weydiisanaynaa naxariistiisa inuu nagu badbaadiyo. bismillaahir rahmaanir rahiim aniga Hussein Ahmed Ali waxa ka baqanaynaa dhibaatada iyo dilka geysto Soomaalida inay naga taageeraan rabnaa. aan ka cabanayna dhibaatada nagu lahayo waddanka South Africa sababtoo ah xilliyada qabowga waxa soo bato dilalka iyo dhaca iyo boobka marka dhibaatadaas waxaan ka baryaynaa dawladda South Africa iyo booliska inay dhig garab naga siiyaan si aan u nabadgelyo uga noolaano waayo dadka madowga ma shaqeeyaan xilliyada qabowga waa xilliyo roobaad ah marka dhibaato badan ayaa iga soo gaartay South Africa iyadoo 2008 ka lagu dhaawacay dukaankaygi aana ku waayay dukaankaygi operation laga sameeyay dhanka gacanta midig haddana saan ma u shaqeynaysa gacanta saas aawada xabadda garabka iga dhacday meesha cunahay ka soo baxday dhibaato badan ayaa soo gaartay xilliga qaboobaha ayayna Soomaalida lagu laayaa South Africa. sidoo kale arintani waxa ka hadlay gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida Koonfur Afrika Mr. Cabdi Jido dhankiisa waxa uu yiri dhibaatada dilalka aad iyo aad bay u badan yihiin bishan hadda aan ku jirno gudaheeda waxa la dilay 7 nin baa la dilay 7 ninna waxa lagu dilay South Africa gaar ahaan Western Cape xaafadaha lagu kala dilay Western Cape waxay kala yihiin Kalija Dalaf Krafontein Philippi iyo Belfield waa isla bishan kaliya baa 7daas qofood ay dhimatay ma naqaan haddana wixii bilaha kale ku xiga dhiman doona laakiin dibka haddan yani marka xilliyada qabowga yimaado geeridu way badataa waxaana taa ay kooskaraysaa dadka waqtiga kuleylada ah ayay shaqeeyaan oo waxa imaanayo in laamiga la burburiyo oo laami kale la sameeyo dhismooyin bay ka shaqeeyaan markii qabowga yimaadana dadku ma shaqeeyaan marka sidaas la ajligeed dadku waxa yani maaragtay locationka ay ku laabanayaan waxay ka shaqeeyaan marka qofka inay boobaan ama ay dilaan ama ay yani maaragtay ay dhacaan ay yani maaragtay shaqadoodu ay ku soo ururtaa. sanad walba marka la gaaro xilligan qabowga dalka Koonfur Afrika ayaa waxa sii xogeystay dilka dhacay dhaawac loo geysto dadka Soomaalida ee ku nool dalkan Koonfur Afrika ayadoo taasi lagu sabaynayo qabowga daran ee soo food saara dalkan Koonfur Afrika taasoo shaqo la'aan ku ridda tuugada isla markaana shaqooyinka dhigta ganacsatada Soomaalida inay dhacaan isla markaana dhibaateeyaan waxaana toddobaadkii u dambeysay dalkan Koonfur Afrika lagu dilay in ka badan 7 ruux oo Soomaali ah mana jirto cid wax ka qabatay arrimahani. Cabdullaahi Qorshe Royal TV Cape Town Koonfur Afrika.